asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaanu ku falanqeyn doonaa goosgooskii labaad laga soo bandhigay qeybta 175aad ee taxaanihii gundhigii cusmaan. fadlan haddii janalka cusub tahay sabskraibti noo saar hore haddii noola joogtana daawada muuqaalka inoo like garay aad iyo aad ayaadna u mahadsan tahay daawade. intaynaan gudageli muuqaalka ka horatana ku saliya xabiibkeena moxamed salaallahu calayhi wasalam. hadeerna si toos ah aynu gudagalno muuqaalkeena maanta. runaantii goosgooska waxa uu ahaa mid caalami ah oo professional ah. waxyaabaha lagu daawadana aad ayay ku xiiso gelinayaan, taasoo kaa dhigaysa markaasi in xalqada markaasi si degdega loo soo bandhigo oo aad sugi kari weydaba. haddaba aynu ku bilaabna markaasi horey waxaynu arkaynaa markaasi cusmaan iyo orhaan iyo calaadiin oo isla socdaan. cusmaan oo dhahaya arkaynaa markaasi dagaalka guushiisa kuma timaado markaasi badnaanta ciidamada, macnaha ciidan fara badan inaad haysato taas macnaheeda kama dhigayso inaad markaasi dagaal guul ka keento. caruurteeda waxaan idiin sheegaya ayuu leeyahay markaasi guusha dagaalka laga keeno wax kale maahan ee waa geesinimada. geesinimo mar haddii iyo jirto wuxuu leeyahay dagaalkaasi waa lagu guuleysanaya, laakiin ciidan fara badan oo fuliya warkiisa waxaa ku jirta markaasi ciidan fara badan oo fuliya markaasi waxay keeni karaan malahan. ciidan yaroo wada geesiyaal ah oo markaasi xaqiiqo ay ka tahay dagaalka unbaa guuleysan kara. waa sidaas haddii hadalkiisa aynu macneynaba, hadalada qaar in la micneeyo ayay u sii baahan yihiinba. kabacdina cusmaan wuxuu sameynayaa markaasi waayo hore oo kaleeto ayuuna soo xasuusinayaa xilligii calaadiin iyo orhaan ay asaga markaasi u tababari jiray. hadeerna mar kaleeta ayuu markaasi tababar sameynaya, dadkan sidii usoo weynaadeen ilaa hadda asaga wax tababara muusan la qaadanin. marka sidaas darteeda labadoodiba wuxuu amar ku siinayaa markaasi inay awoodiisa markaasi ay tusaan, inay awoodooda inay soo bandhigaan. kabacdina waa wada dagaalamayaan. cusmaanna waxaa arkayna labadoodaba isagoo ka guuleysanaya seefta qoorta oo ka saaraya markaasi, laana waa aabahooda de geedba geed baa ka weynaya dheheen. iyaga dee awood leeyihiin meelahaas kale hala aadaan, laakiin waa cusmaan mar haddii loo imaado bis waaye way ahaanayaanu keliyata waaya. in kusii socona marka waxaa arkaynaa naagtii sofiya lagu magacaabayay oo dhehaysa markaasi cusmaan wuxuu ku noolaan doonaa ayay leedahay markaasi geerida noocyadeeda midda ugu xun, isla mar ahaantaasna waan xanuunjin doonaa ayay leedahay. oo qoftaani markaasi meel kaleeta ayay markaasi kasoo socotaa, keliya meesha cusmaan kasoo weerari kartana waa naqaanaa. waa maalinkuu cusmaan ogaada markaasi in gabadhiisa ay nooshahay, iyadana markaasi ay ku handadi doonto inay dili doonto. cusmaan iyo baalana waa marka keliyata markaasi jilbaha dhulka loo dhigi karo, ka hor jilbaha dhulka loo dhigi karo ma maleehayo. hubkii ay isaga dhici leedna sofiya hadda waaba ay sii haysataaba. kabacdina cusmaan iyo ehelkiisa iyagoo iska faraxsan ayaanu arkaynaa markaasi, halka gabadhii booyana lagu magacaabayna ciyaarta daawada ee ka aheyd, islamar ahaantaasna ay daawanaysa ciilna ay qabta markaasi dadkan sida isugu faraxsan yihiin, oo ayna leedahay markaasi waalidkayga iyo dilin iyagana sidan ayay isaga faraxsan yihiin ka waran. waaya intaa kabacdi cusmaan wuxuu usoo qalab qaadanayaa markaasi inuu furto qalcadii aqxisaar lagu magacaabay, taasoo berihii dambeetaba uu qorsheynaya furashadeeda. si toosa duurka inta uga soo baxay ayuu markaasi barxaddii iskeenay, isagoona markaasi sofiya iyo sidoo kaleetaba ninkii lagu magacaabay lookaas duqeyn ku bilaabo cusmaan. aadi ayuu u duqeynayaaba. waxaanu arkaynaa iyagoo manjaniiqyada ku garaacayaan. halqadii hadda lasoo dhaafo dhammaadkeedana waxaa xasuusanaa markaasi orhaan inuu markaasi dadkan duurka kasoo tuuriyeynayay, laakiin hadda banaankaaba la iskeenayba. islamar ahaantaas waxaynu arkaynaa ninkii lookaas aad iyo aad u xanaaqsan oo qaylinayo. qalcadan ay gacantiisa ayay kasii baxsan rabtaa, laana cusmaan ciidamadiisa hataa derbiyadii uga soo badboodayaan. oo cusmaan iyo ciidamadiisa waxay isku dayaan markaasi qalcadan ay gacanta ku dhigaan, taasoo u badan markaasi xalqada soo socotaba inay gacanta ku dhigi doonaan, ama xalqada soo socota dhammaadkeed ayuu dagaalkani dhici doonaa, ama wuxuu dhici doonaa hadduu ilaahay idmaayo adee xalqada ku xigta meelahaasoo kaleetoo dhici doonaa. laana ninkan lookaas lagu magacaabo dib ha ugu laabta markaasi meeshii uu ka yimid, ama dib ha ugu laabta markaasi buursa. hadda qalcadda gacantiisa waaba kasii baxaysaaba, isaga iyo sofiya oo awoodooda ay dheer tahay ayaa hadda markaasi waxay ku guuleysan wayeen markaasi inay sii ilaaliyaan qalcaddii dhammeedba. dhanka kale waxaa arkaynaa abaanduulaha cusub ee mongooliska, isaga oo dhahaya markaasi imaa inaa ila baayactantaan oo ila heshiisaan, oo aad markaasi iska bixisaan markaasi canshuuraadkii la idinkaga baahnaa, amaba inaa isdagaalno oo aad dhimataan dhammaantiina gacanteedan idinku dilayaa. warka sidaasna wuxuu ku leeyahay markaasi baala, isagoona qabiilka yimid. islamar ahaantaasina baala waxay leedahay taasi wax badan ayaad sugan doontaa, oo wax dhici kara maana ula jeedaa markaasi waxaad sheeganaysa inaan anaga ku siino, marka sidaas darteeda marnabaha ku fikirin ayay leedahay midaasi inay dhacdaniyo. kabacdina wuxuu leeyahay maruu wuxuu isku dayaa markaasi xoogaa inuu usoo dhawaado, laakiin ciidamadaba ka qabanayaan sida ninkii toorhaan ahaa. ninkaana waxaa lalahayaa markaasi dib u laabo, iskana jir waxyaabaha qaar aad ku fikiraysa inaad sameyd adiga. marka sidaas darteed isaga dib u laabanaya ninkaane, isagoo ciiloosan ayuu meesha ka tagayaa, ciil ayuuna qabaa. wuxuuna isku dayi doonaa markaasi tani inuu jawaab ka bixiyo.
intaa ka bacdina wuxuu sameynayaa weerar ayuu wuxuu ku qaadayaa markaasi dadkii mudane Cusmaan hoostayay qabaa'ilada kaleeto isagoona meesha ku baabi'iyay sidaan goosgooskii horeetaba aynu ku daawana markii ay dhahayeen qofna yaa laga tegin dhammaan waa in la dilaa. waxaan oo dhanna wuxuu u sameynayaa markaasi si Cusmaan markaasi uu u tuso awoodiisa. marka ninkani xalqadaha soo socda ayuu baashaali doonaa kulli aragaana waxyaabaha ka soo cusboonaada markaasi doorka ninkani. waxaynu kaleeto aragnay ninkii Cusmaan ahaa oo si toos ah markaasi darbiyadii ugu guuleystay inuu jibiyo isla markaasna gudaha u galay waa xisaar qalcadaas taasoo ka dhiga markaasi xalqada dhamaadkeeda inay ku soo beegmi doonto furashadana markaasi markii ay dhacdo xalqadana sidaas ay ku soo afjarmi doonto maadaama in badan aynu u xiisnay xalqada dhamaadkeeda markaasi inaynu ku daawan markaasi waxyaabo xasaasi ah oo ay ka mid tahay markaasi Cusmaan oo qalcad furahay maadaama mar hore aynu ugu dambeysay waxyaabaha ceenkaas oo kaleeto. waaya waxaan arkaynaa markaasi dhanka kaleeto gabadhii lagu magacaabay Holovira oo dhaysa markaasi marnaba lagama yaabo mudane Cusmaan inuu siiyo Mongooliska waxyaabaha ay rabaan oo markaasi badeecadaha iyo canshuuraadka iyo waxyaabaha ay doonayaan iyadii Gonjaya ayaana markaasi isla taagnaayeen. intaa kadibna waxaynu arkaynaa markaasi Cusmaan markii uu yimaado inuu ku sii soconay markaasi dadkii la baabiyay masaakiinta ahaayeen ayuu u imaanayaa wuxuu leeyahay qofka sidan dadkan ku sameeyaa waaye aad iyo xanaaqaya wuuna qeylinayaa. kabacdina waxaynu arkaynaa markaasi gabar yar ayaa u imaanaysa oo ka badbaada dadkii meesha lagu laayay waxayna leedahay markaasi mudane Cusmaan waad ii ballan qaadaysaa soo maahan inaadan ka tagaynin kuwa sidan sameeyeen ciqaab la'aan oo aad ciqaabi doonto iyagoo kumanaan haddii yimaadaan hataa wuxuu leeyahay markaasi sii daymayo waan ciqaabi doonaa. mid iyaga ka midan u ogolaamay markaasi dhulkayga inuu lugta soo dhigay isla marhaantaasna uu nolol uu markaasi ku badbaado waan dilaya ayuu leeyahay. qofna iga badbaadi mayso cadowgayga ka mid ah Cusmaan marka waa warkiisu waa cad yahay. waxaynu arkaynaa goosgooska oo sidaasiba ku soo idlaaday sidaasina ku soo dhammaaday. dawaalkaas waxaynu ku ogaanaynaa markaasi xalqada soo socota waxyaabaha loo daawanayo haddii aan ka shidaal qaadano labadii goosgoos ee lasoo bandhigayba inaynu ku daawan doono oo keliyate waxa ugu weyn oo ay tahay markaasi qalcadaasi furashadeeda iyo imaanshiyaha markaasi Mongooliska ee ku soo biiraya taxanaha gundiga Cusmaan iyo khalalaasahooda markaasi ay dhinaca ka bilaabi doonaan. marka waxaanu leenahay soo dhawaada aynu leenahay Mongooliska. waxaase macquul ah xitaa in goosgooskani uu noqdo muuqaalka ugu dambeeyay aan channelkan kusoo falanqeeyo laana mar walba noloshu markaasi ay meel ku dhiibeyso qofkii bini'aadankana markaasi qadarka baa wadaya waxaani hadda waa kun sano ka weyn qadarkaaga waxa qorsheysatay iyo wax dhacayna isma laha marnaba. marka sidaas darteed insha Allah waa mar kale ayaynu is arki doonaa. muuqaalkan intaas ku soo koobaya. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.